maxamed siyaad barre waxa uu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya. Waxa uu ku dhashay magaalada Garbaharre ee gobolka Gedo intii u dhaxaysay 1910 ilaa 1920. Inkastoo khilaaf uu ka jiro asalka goobta uu ku dhashay madaxweynaha, haddana sida laga soo xigtay ila kamid ah kacaankii uu hogaaminayay waxay sheegaan inuu ku dhashay gobolka Gedo. Aabbihii Siyaad Barre waxa uu geeriyooday isagoo 10 sano jir ah, halka hooyadii Shaqlan Warfaa ay geeriyootay isagoo 8 sano jira. waxaana soo koriyay adeerkiisa Xarsi Barre iyo eedadii Sacdiyo. Sarreeyagaas Maxamed Siyaad Barre waxa uu yaraantiisii ku soo koray miyiga, waxaana sanadihii 1936 uu Jaale Maxamed Siyaad Barre ka soo tegay miyiga isagoo yimid degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, halkaasna uga sii gudbay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. wuxuuna iska diiwaan geliyay askar tababar loo xareynayay isagoo tababarkii ugu horreeyay ku qaatay xerada Lamagalaay ee ku taal gudaha magaalada Beledweyne sanadkii 1936.